madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa goor dhoweyd markii ugu horeysay si rasmi ah uga hadlay dagaalka maalmihii ugu dambeeyay ka socday magaalada gurceel ee gobolka galgaduud madaxweyne qoorqoor ayaa ugu horeyntii ka tacsiyadeeyay dadkii ku geeriyooday dagaalkaasi halka kuwii ku dhaawacmayna uu ilaahay uga baryay caafimaad degdeg ah isagoona sheegay in uu aada uga xun yahay barakicinta dadweynaha gurceel waxa uu sheegay in kooxda ahlu sunna ay ku been abuuranayso magaca diinta islaamka si ay uga fuliso damac shakhsi ah oo uu la jeedo inay bilowday dhibaatada ka dhalatay gurceel ayna duulaan ku tahay nabadda guud ahaanba maamulka sidoo kale waxa uu sheegay in mowqifka galmudug uu mar walba yahay in wax lagu xaliyo wada hadal hase yeeshee ahlu sunna ka dhaga adeegtay arrintaasni ayna qaateen in ay qasaan magaalooyin cusub oo xasiloon waa sida uu isagu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in dowladda galmudug ay ku qasban tahay inay dagaal ku qaado si ay isku difaacdo maadaama uu sheegay in ahlu sunna ay duulaan ku tahay sharciga iyo dowladnimada galmudug ugu dambeyntii waxa uu ku dhawaaqay guddi cusub oo ka kooban xubnaha golaha wasiirada ee maamulkaasi iyo maamulka degmada gurceel oo loo xilsaaray inay gargaar degdeg ah u gaarsiiyaan dadweynaha reer gurceel ee ka barakacay aagga dagaalka uu ka socdo haddaba waa kan madaxweyne qoorqoor oo arrimahaasi ka hadlaya bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan halkan rabnaa inaan kusoo gudbino xaaladda galmudug gaar ahaan degmada gurceel ay ku sugneed beryihii u dambeeyey marka hore waxaan shacabweynaha reer galmudug uga tacsiyeyneynaa dhibaatadii ka dhacday degmada gurceel waxaan si gaara ugu tacsiyeyneynaa shacabka degmada gurceel dhibaatadii ka soo gaartay duulaankii hubeysnaa ay ku soo qaadeen ay ku qabsadeen kooxda hubeysan ahlu sunna waljamaaca magaca wanaagsan adeegsata balse aan sidaas ku shaqeyneyn ay deegaanadoodii uga kiciyeen guryahoodii uga barakiciyeen aada iyo aad baan runtii arrintaas uga tacsiyeneynaa shacabka degmada reer gurceel dhibaatadii ka soo gaartay guud ahaan meeshaa dhibkii ka dhacay intii ku dhimatay waxaan ilaahay uga baryeynaa in ilaahay u naxariisto intii ku dhaawacantana ilaahay u boogadhayo runtii aada iyo aad annagoo arrintaas uga xun uga tiiraanyeysan shacabkeenii degmada gurceel duulaanka abaabulan loogu soo qaaday guryahoodii looga dhigtay dhufeysyada iyo xeryaha ciidamada looga barakiciyey waxaan rabnaa inaan halkan uga dhawaaqno kasoo saarno guddi ka kooban xubno golaha wasiirada iyo maamulka degmada gurceel oo aan u xil saarnay inay wixii gargaar iyo caawino ah ee galmudug ay awoodo la gaaraan dadkaas jilicsan waayeelka haweenka caruurta ku dhibaataysan geedaha hoostooda xilli adag oo ay jirto runtii xaalad ay deegaanka ka jirtay markii horeba deegaanku iska ahaa deegaan abaar xilli jidaala ku jira walow dee roobabna haddana ay hadda ku da-een oo roobabkiina ay saameeyeen dadkii guddigaasaan xil saarnay waxaan ugu baaqaynaa dadka reer galmudug dal iyo dibad meel ay joogaanba inay caawiyaan walaalahooda dhibaatadu kasoo gaartay kooxdaasi dhibaatada ay geysatay oo usoo gurmadaan sidoo kale waxaan dowladda federaalka iyo hay-adaha gargaarkaba ugu baaqaynaa inay gacan ka geystaan xaaladda bani aadamnimo ee ka jirta degmada gurceel intaas kadib waxaan rabnaa goobaha caafimaadka iyo isbitaalada inaan iyagana farno dhammaan mas-uuliyiinta iyo howlwadeenada in si
dhaawacyada loo wada adeego service simanna loo sameeyo iyadoon dhanna loo eegeyn. maxaa yeelay dadka waa dadkeennii, kuwa la qalday ee loo sheegtay ama loogu gabanayo magaca diinta islaamka loogu been abuuranayo iyadoo dana gaara la leeyahay, iyadoo la doonayo damac shaksi ah ama damac aan ka turjumayn diin iyo dan iyo dowladnimo toona in dadkiina lagu qaldo oo la yidhaahdo waxaan nahay ahlu sunna waljamaaca. ummadda soomaaliyeed ayaa ahlu sunna waljamaaca ah. koox si gaara inta u adeegsata ku samaysanaysa ama ku gabaadsanaysa dan gaarana dadku waa ujeedaan. intii la qaldana waxaan leenahay xaqa iyo wanaagga iyo maslaxada allah tusiyo. taa goobaha caafimaadkana waa sidaas. si aad la socotaan beryahan waxaa jira dad uga hadlaya ama marin habaabinaya shacabka reer galmudug iyo shacabka soomaaliyeedba, iyagoo ka leh u gudbinaya fariimo ay ka leeyihiin dana qalloocan oo aada iyo aada u jaban. mowqifka dowladda galmudug horena waa u caddaa, haddana waa cadya. waxaad la socotaan 22 beri inay fadhiyeen kooxdaas hubaysan ee duulaanka ah soo qaaday degmada gurceel inay qabsadeen. waxaan intaa u gudbinaynay, ka codsanaynay, jiha kasta u marinaynay inay ka baxaan degmada gurceel, dadkana u daayaan nabadooda, xasiloonidooda iyo dowladnimadooda. wixii ay qabaan oo tabashaana ay si nabada ku sheegtaan oo joojiyaan qoriga iyo xoogga. taas bedelkeedii waxay qaateen inay dhufaysyo iyo xeryo ciidan ka dhigtaan degmada gurceel, ayna qorsheeyaan inay qabsadaan deegaano cusub oo hadda xasilon. dowladda galmudug waxay ku qasbanaatay markaysan wax aysan istaajinayn dhibaatadooda inay isdifaacdo. taasna dowladda galmudug shacabkeeda iyo dadkeeda ay ku matashaa. maxaa yeelay waxay duulaan ku yihiin dowladnimadooda, nabadooda, cadaaladooda iyo sharcigooda iyo wajirkooda. waxaan caddaynaynaa oon ku celinaynaa mowqifka galmudug wuxuu yahay qof kasta, muwaadin kasta oo reer galmudug oo tabasho qaba inay dhegaysato, la fadhiisato, laga qanciyo wax kasta uu xaq u leeyahay ama uu tabasho u leeyahay uu tabanayo. waxaynan dowladda galmudug marna aqbalayn shacabkeeda iyo dadkeedana ku hogaamisaa xoog, hub iyo qori caaradiis in dad iyo deegaanta lagu qabsado, lagu kala gooyo, galmudugna lagu dowladnimadeeda iyo sharciyadeeda lagu soo duulo. sidaasna damac shaksiya lagu xaqiijiyo, manaasib iyo kuraas lagu raadiyo, in la shito xaaba laga dhigto dhalinyaro reer galmudug oo qiimo badan. taas ma aqbalayso galmudug, mana jirto meel ay ka socoto adduunka ay ka shaqaynayso. waxayna galmudug kala mid tahay shucuubta caalamkay kala mid tahay, shucuubta soomaaliyeed kala mid tahay. mana jidaynaysa galmudug waddo xun oo soomaali u horseeda dariiq madow. intaas taas uga baxo. waxaan la soconnaa dhinacyo gadaal ka taagan dhibaatada galmudug gaar ahaan gurceel ka socota, oo dacminaya, oo gacan siinaya, oo soomaali iyo ajnabiba leh. aad baan uga xunna in maanta 2021 aan aragno si raqiiskaas dad u fakaraya oo dhibaato uga shaqeynaya deegaan iyo dad walaalahooda iyo dowlad goboleed walaalahooda. waxaan rabnaa intaa u dhaafi mayno. caddaymaheedian haynaa, mar kalean ka hadlaynaa, waa soo bandhigaynaa si cad insha allah. ugu dambeyn, bulshada reer galmudug dhammaanteen waxaa noo taalla inaan gacmaha isqabsanno, howlo waaweyn oon hor yaallan aan gudano, oo ay kow ka tahay la dagaalanka argagixisada, oo ay laba tahay in ay dalka ka dhacdo doorashooyinkii heer federaal. nagama leexinayso waddada, nagamana duweyso inaan la dagaalano argagixisada iyo inaan doorashooyinkii dalku sidii loogu talagalay uga dhacaan insha allahu tacaala. waxaan isu rajeynaynaa, isu dardaarmaynaa guul, wada jir iyo midnimo
wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.